waqti wuxuu go'aamiyaa qofka aad la kulmayso nolosha qalbiga wuxuu go'aamiyaa qofka aad rabto nolosha laakiin dabeecadaada iyo dhaqanka uguba waxay go'aamiyaan qofka kula joogaya noloshaada u shaqee sidii in baahideeda oo dhan aysan lacag kaliya ahayn u noolow si aan xad dhaaf ahayn u soco si aan kibir lahayn u jeclow si aan shuruud ku xirnayn waxu bixi si aan istutus ku jirin qabriyada waxaa ka buuxa dad badan oo ku fikiri jiray markaad weynaato ayaa wax wanaagsan samaynaysaa ama sanadka dambe ayaa isbeddel samaynaysaa ma jirto qof lagula ballamay inuu sii noolaanayo ilaa uu waayeel noqdo ha suuyi waqti kale haddii saaka waa uu kuu baryey ilbiriqsi kastoo aad neefsanayso waa fursad kale oo alle ku siiyey ee ka faa'iidayso goortii albaab xirma mid kale ayaa furma laakiin waxaa inta badan sii eegnaa weliba si shaleeto ah albaabkii xirmay iyadoo aan arki weyne kan inoo furmay ha ku raacin muuqaal way ku qaldi karaan ha ku raacin dhaqaale wuu dhammaan karaa dooro qof farxad kuu keeni kara sababtoo ah dhoola caddayn keliya ayaa maalin mugdi ah ka dhigi karta iftiin xiriirku waa sidii guri oo kale goortii guluubka nalka uu gubto intaad baxdo ma soo iibsatid guri cusub balse waxaad hagaajisaa guluubka nalka dhimashada qof noo dhow ama aan naqaanay ma ahan inayna xasuusiso ka sheekaynta wixii uu ahaa ama aan tacsi darna keliya ee waa inayna xasuusisaa inaan isu diyaarnaa safarkeena dambe ee nolosha ee lagu waarayo